بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي وإذا ما سلامي maanta waxaanu rabnaa inaynu sharaxno component kale oo marka aan halka taabto arki doontiin halka emojiga yar madow markaan taabto qoraalka hoosta kusoo qormay ee isticmaal keyboard emoji ee halka hoose kusoo qormay sida loo sameeyo waa component marka kaas maanta insha Allah isku dayna inaan sameyno. haddana kusoo noqono app-keeni oo ahaa app-kii components waa kan. markaas si aad u sameyso qoraalka yar halka hoose kusoo qormo oo kale meesha doonto dhigi kartaa meeshaad app-kaaga uga baahdo oo kale halkan ayaad soo dhigtay button kadibna light gravity-ga center ka dhigtay kadibna waxaad tiri inuu kale exit ayaad halka ku qortay kadibna fartaada yar waaweynaysiin 18 baad ka dhigtay meelaha textilka intaada hagaajisanay si fiican ayaad u garanaysiin baa umaleynaya. markaad halka exit ka dhigto waxaad odhan on click wax yar aad u fudud waxaa la dhahdaa component-ga toolbar waa bahalka ay ku dhex qoran tahay toolbar ay xagan dhigi oo marka lagu dhufto button-ka madow ee ay ku qoran tahay exit waxaan ku dhex qorinaa toolbar fadlan ha ka bixin inuu kala qofku app-ka wuxuu rabay inuu ka baxo kadibna waxaad hoosta yar ugu qoraysaa fadlan ha ka bixin kadibna calaamad taxdiir ama calaamad cajiib u raacinaysaa waxaad doonto ayaad u raacin kartaa. anoo calaamad cajiib ayaan u raacinayaa calaamadaas ayaan raacinayaa kadibna run ayaan odhanayaa. laakiin waxaad dhigi kartaa meeshaad uga baahato app-kaaga inaad dhigto oo qoraalka yar xagga hoose qofka wuxuu ka caawinayaa inuu fahmo xaaladda haysata ama app-ka muxuu diiday muxuu app-ka ciladan u keenayaa open ayaan odhanaa. markaan exit taabto fadlan ha ka bixin ayaan odhanayaa fadlan ha ka bixin waad arkaysiin baa umaleynaya qoraalka fadlan ha ka bixin. marka maantana cashirkeenu waa toolbar ayaabuu ahaa marka waxaad barateen sida loo isticmaalo toolbar ama component-ga yar ku diyaarkii halka ku yaal. sidoo kale video-ga hore waxaan ku soo sheegnay sida loo isticmaalo show keyboard iyo hide keyboard. insha Allah video soo socdana component kale oo kun kamid ah ayaan baran doonaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.